kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa Dalmar Official TV. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato fadlan subscribe, like, share intaba. daawadayaal halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa qiso jacayl taasoo la magac baxday maalmihii hantaaqada. qisadan waxaa qoray Cali Mahdi Jibriil Xasan Sheekh, waa saxufi, hal abuur iyo qoraada yar oo ku nool magaalada Hargeysa. daawada qisadani ma aha mala awaal ama sheeko uu mala awaalay sida qoraalo badan oo bulshada loo soo bandhigo oo maskax bini'aadan ay samaysay. sheekadan jacayl waxa uu ka qoray 3 qof ay ku socoto 2 ka mid ah, waxaana uu Cali matalayaa sidii qofka qisadani ay ku dhacday. waxaana idila wadaagaya anigoo ah Cabdikariin Cabdilaahi Yuusuf Cabdikariim Dalmar. daawade haddaba waa maxay jacaylku? in badan baad maqashay jacayl. waa maxay jacayl? maxayse lagu qeexaa? jacaylku waa dareen awood badan oo Ilaahay ku dhex beeray abuurtiisa dad iyo dugaagba. jacaylku waa quruxda nolosha, waa waxa kaliya nolosha qiimaha u yeela, sababana inaynu sii xiiseyno inaynu dunida sii joogno in badan. waxaynu jecelnahay qoyskeena, waxaynu jecelnahay waalidkeen, walaalaheen, guud ahaan qoyskeena iyo qaraabadeennaba. xataa marka laga hadlayo asxaabta ama intaynu ugu dhow, waxaynu jecelnahay qaar ka mid ah asxaabteena. sidaas darteed jacaylku kaliya ma aha ka dhex abuurma lamaanaha ama ka dhex mara gayaanka, ha ahaado wiil gabar jecel ama inan wiil jecel, balse nolosheena oo dhan baa u qaybsanta jacayl iyo nacayb. ilaahay ayaa qur-aankiisa inoogu leh wajacala baynakum mawaddatan waraxmah, oo macnaheedu yahay waxaynu dhexdeena ku abuurnay jacayl iyo raxmad. daawade sheekadani waa sheeko dhab ah. hadda waxaynu si toosa u bilaabi doonaa sheekooyinka oo goosgoos ah. waxay ahayd goor fidcawl ah, waa dabayaaqada bisha barakeysan ee Ramadaan, waxayna dhammaan bulshada u diyaar garoobaysaa dabaaldega Ciidulfitriga. waxaan ku sugnaa goobtii aan ka shaqaynayay oo ku taalay bartamaha magaalada Hargeysa. si kadiisa waxaa igu soo dhacay telefoonkayga gacanta. markii aan aqoonsaday in qofka soo wacaya yahay saaxiibkay Cabdi, waxaan u qabtay si dhaqso ah. saaxiibkay waxa uu iga codsaday inaan ka caawiyo shaqo uu kasoo qabanayo saacad kadib mid ka mid ah supermarketyada ugu waaweyn magaalada Hargeysa. waa xarunta ganacsiga ee Sacaadadiin oo ku taala galbeedka magaalada Hargeysa. waxaan si kadiisa usoo gabagabeeyey joogitaankaygii goobtii aan ka shaqaynayay. waxaan usoo kacay dhinaca iyo suuqa uu saaxiibkay igu sugayay. waxaan ugu imi isagoo ku sugan goob lagu cabayo kofeega. waxaan isku raacnay dhinaca iyo degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa, oo aanu kasii qaadnay qaar ka mid ah dadkii shaqada la fulinayay saaxiibkay. ugu dambeyntii waxaanu u jihaysanay dhinaca galbeedka magaalada Hargeysa oo ay naga xigtay goobtii ganacsi aan ku soconay. saacad kadib waxaanu soo gaadhnay Sacaadadiin. waxay ahayd goob aad u camiran oo kulmisay 100 qof oo ka adeeganaya. sidoo kale waqtiga ciidda inta badan magaalada Hargeysa waxay noqotaa magaalo aad u saxmad badan, ayna cidhiidhi yihiin wadooyinkeeda iyo suuqyadeeduba. markii aan galay meel baarkin ah oo aad u cidhiidhiya ayaan kasoo degay gaadhi, iyadoon weli asxaabtii la socotay aanay dhulka imanin. Sacaadadiin waxay ahayd goob aad looga shaqeeyey quruxdeeda iyo iftiinkeedaba. qofka jooga ma uusan kala garanayn maalin iyo habeen waxa ay tahayba. ilbiriqsi kadib waxaa gaadhigii aan watay kasoo degay 2 hablood oo ahaa kuwii naga soo raacay 26 Juun ee saaxiibkeena sii mariyay. mid ka mid ah markiiba waan gartay oo waxay ahayd shaqaalaha xarunta saaxiibkay ka shaqaynayay, laakiin gabadha kale hore uma arag. waxay ahayd gabadh wejigeeda khajilaad badan ka muuqdo, waxayna u degtay sidii qof dhuumanaya oo kale. indhahaba kumaan badine hore ayaan u dhaafay, waxaana u dhaqaaqay dhinacii uu iga xigay qaybta farniijarka ee Sacaadadiin. inta aanan albaabka gaadhin ayaa waxaa gacantay qabtay mid ka mid ah shaqaalaha xarunta oo aanu aqoon hore isku lahayn, taasoo sababtay inay weydaartaan saaxiibkay Cabdi iyo 2 hablood ee la socday. mar kale waxaa indhahaygu qabteen inantii ugu dambeysa asxaabta, una soconaysa qaab aad u qurux badan oo qalbigayga soo jiitay. aan ka daba dhaqaaqay anigoo doonaya inaan ka bogto gabadhan. halkaas hay noogu joogto sheekadani.